waa kasmaal oo ka kooban 3 wareeg oo tartamayaasha kala duwan ay ku tartamaan 10 su'aalood oo wareegga koowaad iyo 5 su'aalood oo wareegga labaad iyo 1 su'aal oo wareegga saddexaad. haddii aad doonayso ka qayb qaadashada barnaamijka kasmaal ka soo jawaab su'aalaha ku soo dhici doona lambarkaaga Somtel adigoo soo qoraya jawaabta aad leedahay waa tan saxda ah sida ba ta ja ama xa kadibna ku dir lambarka 822 wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir qancinta macaamiisha telefoon lambarkiisu yahay 100 ama 66 eber. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتي وناكسن داوديال ميل كستو adduunyada ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijka Kasmaal oo habeen walba ay kala aad ka daawataan TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland xarunta dhaxaan ku leenahay magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland. waa tartan aqooneedkii bisha barakaysan ee Ramadaan soo wadnay oo shirkadda Somtel ay ugu tala gashay in ay ku abaalmariso ka qaybgalayaasha barnaamijkan lacag shilinka Soomaaliga. Ramadaan maalinta ka dambaysa waa isu guraysaa maalinta ka dambaysa ciidii baa soo dhawaanaysa ka qaybgalayaashuna aad bay soo tiro badanayaan kuwaasi oo ku dadaalaya bal inay ku guuleystaan mid uun ka mid ah wareegan si ay qayb iskaga beegaan lacagaha xaqul ciidka ee soo aadan. haddaba yaa ku guuleysan doona mid uun ka mid ah wareegyada kala gedisan ee barnaamijka Kasmaal oo wareegga koowaad qofku kaga jawaabi doono 10 su'aalood ka labaadna 5 su'aalood ka saddexaadna waa 1 su'aal oo kaliya 16 su'aalood waxaa lagu helayaa qofkii ka jawaaba 5 milyan oo lacag oo shilinka Soomaaliga waa lacag ku filan xaqul ciidkii naftiisa iyo sidoo kale qoyskiisaba qayb ka mid ah. waayahay tartamaha ugu horeeya barnaamijka caawa ayaan u yeeri doonaa wiilka lagu magacaabo Cabdullaahi Axmed Cali hal soo dhaweey. السلام عليكم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سولو ولا؟ أدوه ولا؟ هيه. عبد الله برنامج كرة ما وقع بقش. ما ولا الله عاوي ورس. هذا كوجه هرس. واي. شركة سمتل بفضل شيء حكوا لهم كذا برنامج كان. برنامج كان وعلى موضوع برنامج أرتي سندي وجد بي ولا سعودي برنامج استعنا ولا سعودي هسا تمد إن أنا كتبعته إن شاء الله عاوي رجيني أنا كتبعته نسيب كذا ورد وصارنا. نسيب كذا. برنامج كان وبرنامج وحويه لو تلقى إن دلنتا وحويه أما تدخلوا مثلاً أقوntooda iyo maskaxdooda kobcooda siyaadiyo waana bogaadin iyo barnaamijyo noocaas oo kale loo qabto waad mahadsantahay waa ku soo dhaweynana in 3 mar baa leena caawin doona marka qaybgalayaasha ah mar laba la inaga tuuri doono su'aalaha iyo mar ay wacan doona mid kamid ah asxaabteena Somtel diyaar way xageebin hiigsanaa wareegida والله عاوي ورسا عاوي هنقولوا وين إموضو مركا وريك كواد اسكا تيسانية وريك كواد واي عبد الله وريك كواد إنه لما يسترنا واتهم سؤالات بينك حاجين كتجاوبنا سطح سؤالات كم إذا ولا نعاون دونا تضبط كلنا إنك باك تجاوب دونا إن شاء الله حدي على كديو سؤال شكواد waxay oranaysaa su'aasha koowaad xayawaanka kaliya ee xamaarato ah oo aan ukun dhalin waa ba maska ta qalajista ja abeesada iyo xa oo muluca ah. بسم الله الرحمن الرحيم استوان حيوانك iyo waxa weeye in la wardiyo u baahan yihiin waa kuntooda waxa weeye aad iyo aad xayawaanka kaliya ee xamaarata ah oo aan ukun dhalin waa su'aasheeni koowaad waxaadna xasuusataa hadday nagu adkaato inaynu fursadeena haysano laba laynaga tuuro iyo in ka qaybgalayaashana caawiyaan iyo inuu qof wacanago waxaan dalbanayaa laba laga tuuro in laba laganaga tuuro waay waxaan dalbanayaa in labana laga tuuro waxaa isku soo haray ba oo maska ah iyo ja oo abeesada ah hay jawaabtu waxay moodaa inay caddahay maska aan dooranay maska xayawaanka kaliya xamaarata oo aan ukun dhalin waa maska waa hubtaa aad iyo aad waynu eegnaa
xayawaanka kaliya ee xambaarata ah oo aanu ku dhalin waa ba oo maska ah waynu eegnaa waynu eegnaa waayahay ba oo maska ayaa wada eegi doonaa xayawaanka kaliya ee xambaarata oo aanu ku dhalin waa maska ba oo maska su-aashaasna jawaabteedu waa mid khalad waa abeesada waayo cabdullaahi horey su-aashan makuu soo martay marka mainly oo su'aalaha nooca kale weli oo soo warin weli kuma soo marin xayawaanada waxa weeye inaan isku fiicnayn baa halka ka cad waaya insha allah waxaan rajeynaynaa inaan hadda kadib haddii aynu ugu soo laabato inaynaan gafi doono insha Allah waay waa mahadsantihiin hala sii dhaweeye cabdullaahi waa tahay tartamaha xiga ayaan markan u yeeri doonaa wiilka lagu magacaabo maxamed axmed siciid hala soo dhaweeye السلام عليكم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندوه. وكم محمد؟ محمد أحمد سعيد. أيه. وكسر حافظة كود أغسطو. قارهان حافظة TRB تورابورو. أرضي جامعة بوساسا دكته. كدكته فاكولتي كوميرس اوف مودرن مانجمنت. ديبارتمنت كوميرس اوف مودرن مانجمنت. فاكولتي هيومن ريسورس مانجمنت. وهي محمد برنامج كرمك هو قبلش. أي كما قيب قال لكن نيدهان بقى قيب قال نيدهان بقى قيب قال نيدهان حاجة كوجل نيدهان قف السؤال فضل لو يديه كل بوليسته حسن ده بدأ قفصن جري واتا إنك واحد وفرنا أو ترتمينا صدق وريق بأنا إنه سويا وريق كواد وتم سؤال وذا يكلباد وشن سؤال يكسد حاد وهل سؤال حاجة مهتنا إن شاء الله بل هب حالة الجنة كو قيميننا هدي الله waayahay waxaad xasuunaataa in 3 mar layna caawin doono mar laba laynaga tuuri doono su'aalaha iyo mar aynu ka qaybgalayaashu ayna caawin doonaan iyo mar ay wacan doono mid kamid ah asxaabteena Somtel su'aasha koowaadna waxayna oranaysaa su'aasha koowaad kooxda waa bari ee Puntland waxa aasaasay ba Cabduqaadir Cali Cigaal ta Sangu ta محمد دقافة ها شوبة وكوحدة وبري بنتلان وها أساسي با عبد القادر على العقال تا سنج تا محمد دقافة يحا أو أبو شوبة وكوحدة فنكا وبري بنتلان سومال مخلين واي سؤال صدق اسكو دايو كل هرت مقعيدان يقوم عصوص لكن ما قاعد عقوبة أنا مغلى كوث وابري والشبع مركا إكس بدوران يا وشبع وضبطه وين يقرأ وين هو وين كوث وابري بنتلان وها أساسي أبوان شبع ها أو شبع يوم ذيكتونا شبع سؤال شاسنا جوابتيدو واه مد صحة su-aasha labaad waxaynu odhanaysaa geedkee ayaan ka mid ahayn geedaha la harsado kuwan soo socda ba maraa ta jeerin ja higlo xa daman su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayo waxaan dooranayaa ta oo ah jeerin ta oo jeerina waayahay waad hubtaa waa huba go-aankaa ugu dambeeyey ta oo jeerina ta oo jeerina maraa higlo iyo damal iyo jeerin ayaan ka mid ahayn geedaha la harsado jeerin ayaan wada eegi doonaa oo ta oo jeerin ayaan wada eegi doonaa jeerin su-aashaasna jawaabteedu waa mid sax ah su-aasha saddexaad waxay ina leedahay cabdirashiid cali sarmaarke allah u naxariistay wuxuu dhintay ba 2006 ta 1967 ta 1966 xa 1969
maxamed hadday nagu adkaato saddexdayna fursad baynu wadanaa. cabdirashiid cali sharmaake. madaxweyne hore Soomaaliya. su-aasha haddaan isku dayo waxaan dooranayaa xarafka b oo ah 2006. ba oo 2006 fiirin shaki baa kugu jira waxan. ha haye cabdirashiid cali sharmaake waxa uu dhintay 1969 1969 ha iyo 2006 waa waqti aad u dheer baa u dhaxeeya. nin saynis ah artistkana saa uma jeclayn. waa karta way bal imika wayna hortaagan tahay 69 ma eegnaa. ha go'aanka ugu dambeeyay cabdirashiid al go'aanka ugu dambeeyay ha cabdirashiid al sharmaarka Allah u naxariistay wuxuu dhintay 1969 xa oo ah 1969 ayaan eegi doonaa. 1969 su'aashaasna jawaabteedu waa mid sax ah. way 2006 marka hore waa sigan ha way su'aasheena afraad waxay noo oranaysaa riyaha neefka lab markuu yar yahay waxa la dhahaa ba ceesaan ta orgi ja ri ha waxar riyaha neefka lab markuu yar yahay waxa la dhahaa ba ceesaan ta orgi ja ri yaha oo waxara. way jawaabta waxar waxar ha oo hubtaa ha waynu eegnaa riyaha neefka lab ma waxar baa la dhahaa maxamed. ha go'aanka ugu dambeeyay waa go-aankayga ugu dambeeyey. riyaha neefka lab markuu yar yahay waxa la dhahaa waxar ja ha oo waxara ayaan wadeegi doonaa. ha oo waxara su'aashaasna jawaabteedu waa mid sax ah. waa tahay su'aasheena shanaad waxay ina leedahay gobolka Togdheer waxaa ku taalay warshada ba birta ta galeyda ta kulli ha hargaha. ta kulliya waxay tilmaamaysaa in warshadii hargaha iyo tii galeyda iyo tii birtuba ay ku wada yaaleen gobolka Togdheer. su-aashaas haddaan isku dayo horta meel fiican meel marana kala wareegi koowaad. haddaan isku dayo waxaan dooranayaa xa oo ah hargaha. ha oo hargaha ha oo hubtaa waa huba waynu eegnaa go'aanka ugu dambeeyay. Waa tuun baa kugu jira. waa igu jiraan laakiin horta birta iyada meesha ka saar oo warshad Soomaaliya ah oo biraha soo saari jiray waxaan malaynaya inaysan jirin. galeydana la aqligayga haddaa cabiro warshad galey looma furan karo keliya. maxaa dhacay? galey keliya looma furan karo warshad. waa karta haye kullina saas meesha uga baxaysaa. kullina saas ay meesha uga baxaysaa. marka waa xa oo hargaha waxa uu hargaha waa go'aanka ugu dambeeyay. waa go-aankayga ugu dambeeyey. gobolka Togdheer waxaa ku taalay warshada hargaha xa oo hargaha ayaan wadeegi doonaa. hargaha ayaan wadeegi doonaa. su'aashaasna jawaabteedu waa mid sax ah. waayahay su'aasha lixaad waxay ina odhanaysaa maxamedow macnaha ereyga Soomaaliga ah ee torre waa ba dilaa ta seef ja waran ha wado. macnaha ereyga Soomaaliga ah ee toore ereygu waa toore toore. su-aashaan iyo haddaa isku dayo waxay noqonaysaa xarafka xa oo wado. xa oo wadaa ha toore waa wado oo hubtaa waa huba waynu eegnaa. macnaha ereyga Soomaaliga ah ee toore waa wado.
ha oo wada ayaa wada eegi doonaa wado 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 wadadu waa mid sax ah toorahaas qaad waa maqashay baadiyaa tagtimiya dhowr maya ya annaga gantaalaha tamuuya gabay baa ku maqlay gabay waad ku maqashay waaye su-aasheena toddobaad waxayna leedahay meel fiican baynu soo gaarnay 3 fursadood baynu haysanaa 3 su-aaloodna waa inoo hareen haddii rabno marba mid baynu ku tijaabsanaynaa soo ma waaye koox caruur goroyo oo mar wada kaca waxaa loo yaqaan ba fil ta goroyooyin ja raxan xa boojaalo su-aashaas haddaan isku dayo jawaabteeda waxa weeye ja oo raxana ja oo raxana ha ja oo raxana ha koox caruur goroyo oo mar wada kaca waxaa loo yaqaan raxan waynu eegnaa ha waad hubtaa ha meel fiican baynu soo gaadhay maxamed laba in laynaga tuuro iyo in ka qaybgalayaashuna caawiyaan iyo inaan qof wacanaba haddii aada hubtid oo aada leedahay waa hubaana waa eeganaynaa okay su-aashaas waxaa u bandhiganayaa caawiyaasha ee daawadayaasha ah ka qaybgalayaasha ha ka qaybgalayaal asalaamu calaykum waa markii koowaad caawa isu soo baahano fadlan idinkoona caawinaya ka fiirsada su-aashan waa taayadii toddobaad hana waxyeelaynina aniga maxamed waxaan rabnaa inaad naga caawisaan koox caruur goroyo oo mar wada kaca waxaa loo yaqaan ba fil ta goroyooyin ja raxan yaxa oo boojaalo ah boojaalo intee qof baa qabta inay fil tahay oo ba oo fil ah inteena qof baa qabta la soco yaa intee qof baa qaba inay tahay ta oo goroyooyina goroyooyin ka fiirsada fadlan haddii aadan garanayn ka aamusan gacanta ha noo taagin haddii aad hubtidna noo taag waaye ja oo raxana raxan waa la socotaa 3 qof 5 waaye intee qof baa qabta inay tahay xa oo boojaalo ah boojaalo waaye boojaalo isu soo dhawaad wanaagsan maxamedow intoodii ugu badnayd dad aan ka yareen 20 qof waxay gacanta u taageen inay xa oo boojaalo ah tahay fikirkaagii hore oo raxan ahaana 3 qof baa gacanta u taagay laakiin go-aanka ugu dambeeya adaa iska leh inaan qolada badan raacno iyo qolada yar raacno iyo inaan labadaba khilaafno in lambar kala qabsano horta dhiyo maamaa Soomaaliyeed baa waxay wadar iyo waaxid baa waalan kowdi haye maadaama dadka daawanaya caawiyaasha dad badan oo abwaana ah ku arkay ay boojaalo ay gacanta u taageen ex baa dooranaya boojaalo xa oo boojaalo intaas badan waxaa dhacday marmarka qaybta dadka inay khaldaan iyagoo badan haddayna khaldaan maxay dhahnaa waa caadi Soomaali khalatay dhib ma laha haddayna saxaan waa sidaa ka filayay waa mahadsan yihiin waayahay waan ku raacnaa koox caruur goroyo oo mar wada kaca waxaa loo yaqaan boojaalo xa oo boojaalo ayaan wada eegi doonaa ka qaybgalayaashaas jawaabtaasina siiyey intoodii ugu badnayd annana waanu ku raacnay su-aashaasina sidaasi bay jawaabteedu khalad waa ba oo fil ah waay maxamedow dareenkaaga waa caadi dhimale waaya qoladiina khalday maxay dhahnaa caadi weeye waa mahadsan way la noqoto xumaan kama aysan ba way kama aysan si wacan ku rajaynaya barnaamijka Kasmaal waad ku mahadsan tahay ka qaybgalka xirmooyinka Somtel ee maalinlaha ah uga bogo internet iyo hadal aan xad lahayn si aad u hesho garaac xidig 102 gees kadibna dooro 1 internet kadib dooro 3 xirmo maalinle ah kadibna ka dooro inta aad rabto inaad ku shubato oo hel hadal 24 saac ah iyo xirmo internet ah ku raaxayso adeega xirmooyinka Somtel tusaale 25 senti waxaad helaysaa 500 MB iyo 24 saac oo hadal ah ku raaxayso adeega xirmooyinka ee Somtel Puntland mahadsanid
bal markana daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijka kasmaal bal dhinaca gabdhaha ayaan markana eegi doonaa aan u yeedho inanta ugu horeysa barnaamijka caawa gabadha lagu magacaabo Saciido Maxamuud Daahir hala soo dhaweey السلام عليكم سعيد. وعليكم السلام. سولو. وعندها. واتم سعيد. سعيد وأنا محمود داهر. ودقت جامعة BSU. كلية ICT. واي. سعيد برامج خرابي وقف قاش. مايا. هذا كوجو رئيسه. واي صدق مر بدت بالنا عاون دونا كقب قلياش أو هالمرة لو مر لنا قطولي دونا يمر إنه عنده أنا متكمل أصحابتين سمتل. ورجيد إنه وحيكون حريين هذا. sida inagu u dooranayna sii socono in halkaas ku joojisano laakiin wareegga koowaad toban su'aalood bay nagu sugayeen way su'aasheena koowaad waxay noo dhahaysaa Saciido su'aasha koowaad ninkii ugu horeeyay ee sameeyay cambuur bireedka dagaalka ninkii ugu horeeyay ee sameeyay cambuur bireedka dagaalka waa ba nabi Shucayb ta nabi Sulaymaan جاء نبي داود عليه السلام يحاء نبي موسى عليه السلام ولكي يقول رئيس مي عن بربريت كدقالك موحوها باء نبي شعيب عليه السلام مسوحوها تاء نبي سليمان مسوحوها تاء نبي داود عليه السلام مسوحوها حاء نبي موسى عليه السلام أنا لبقى قلت تتبع السنة waayahay waxaan dalbanaynaa in labana laga tuuro waxa isu soo haray ba oo nabi Shucayb alayhi salaam iyo ja oo nabi Daawud alayhi salaam waxaan haysanaa wali haddii bay nagu sii adkaato isla su'aashan inaynu isticmaalno fursadaheena kale oo ka qaybgalayaasha laftooda laga yaabo inay qayb haysaa ay ku jiraan oo aynu nidhaahno bal naga caawiya iyana haddaan rabno qof wacno سعيد من وقتك ما يسوق يا وليبا يسوق وليبا ولا بالوقت وين قاعد عايي هذا أشكو ده حوالي نبي داود نبي داود شا ونبي داود يا وين ويقنا يا ويقوان كابودن بي shaki baa kugu jira wali fursad kale aynu haysanaa oo ka qaybgalayaashu nagu caawiyaan ama aan qofku wacan haddaa hubtidna waynu eeganaynaa Saciido ma eegnaa mise tuhum baa kugu jira bisanka u qabo nabi Daawud ninkii ugu horeeyay ee sameeyay cambuur bireedka dagaalka waa nabi Daawud جاء النبي داود عليه السلام يا وديق دورنا نبي داود عليه السلام سؤال شاسنا جوابتي وامد صح وي سؤال شينا لبعض وحي إن الله يضحي ننكي صورة با سوريا بحية تا سور جيدة تا سريكا هرتا ها سعيد بدلك ninkii sooraa ba sooriya bixiya ta soo jeesta ja sari ka hartaa xa Saciid bidhala Saciid hadday nagu adkaato waxay noo hadhay ka qaybgalayaashu inayna caawiyaan iyo inaan qof wacannaba sooraa waa maxay dee kelmadda sooraa waa maxay ninkii sooraa
ninkii soora sooryo bixiya soo jeesta sari ka hartaa ama siciid dibi dhalay waa intaasi mid ku soxanta ja sari ka hartaa ya ninkii sooraa sari ka hartaa waad hubtaa waynu eegnaa ninkii sooraa sari ka hartaa ya waynu eegnaa go-aankaa ugu dambeeyey ninkii sooraa go-aankaa ugu dambeeyey sacuudi fursado inoo hadhay ka qaybgalashu nagu caawiyaan iyo midaan qof ku wacano haddii tuhum kugu jiro haddii aad hubtidna waynu eegaynaa ma eegnaa mase tuhum baa weli nagu jira ja-deeda ku dhigsaday ja baad ku adkaysanaysaa ninkii sooraa sari ka hartaa ja oo sari ka hartaa ayaan eegi doonaa ja oo sari ka hartaa ayaan wada eegi doonaa su-aashaasna jawaabteedu waa mid sax ah waaya su-aasheena saddexaad waxayna dhahaysaa saciiday kolmo waa hilbaha yaryar ee ka laalaada dhuunta ba lo-da ta geela ja ariga xa fardaha kolmo waa hilbaha yaryar ee ka laalaada dhuunta ba lo-da ta geela ja ariga xa fardaha intaa halkan ku qoran unbay mid un ka mida ka laalaadaan kolmo soo maha socdi haye talo waa kee bida maxaa ku qoran lo-da ba oo lo-da ah ya waad hubtaa ya miyaad hubtaa mise waa tuhum baa kugu jira ya socdi waa hubaa waad hubtaa kolmo waa hilbaha yaryar ee ka laalaada dhuunta lo-da waynu eegnaa ya go-aankaa ugu dambeeyey hogaanka u dambeeya waxaa ku adkaysanayaa b ba oo lo-da ah kolmo waa hilbaha yaryar ee ka laalaada dhuunta lo-da waynu eegnaa fursad baa haysanaa haddii aad tuhum kugu jiro dadku inagu caawiyaan iyo in mid qof ku wacano haddii aad hubtid oo go-aankaa ugu dambeysay ay tahayna waxaan leenahay waa kusii daynayna socdo waa hubaa waa go-aankaa ugu dambeeyey waa tahay kolmo waa hilbaha yaryar ee ka laalaada dhuunta lo-da ba oo lo-da ah ayaan wada eegi doonaa lo-da su-aashaasna jawaabteedu waa mid khalad waa ja oo ariga ah waay lo kolmo leh maaragtay weli kolmaba ma garanayo kolmaha ma garanaysid May- laakiin waa lagu sifeeyey waa lagu tilmaamay soo ma ariga miyaadan ku arag marna waaya aloo sacbiyo sacuudo waa tahay daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijka kasmaal oo idinkaga imaanaya puntland t v magaalada garowe tartamaha xiga ayaan markan u yeedhi doonaa wiilka lagu magacaabo cabdirasaaq ismaaciil cabdi ha la soo dhaweeyo sumteel ayaan ahayo Somtel, daruurahan sabeeyaayo Somtel, surunkii kastoo idilaa Somtel, sikin baan ku gaadhaayo Somtel, dadku way sugayaayo Somtel, iise cabtumayaayo Somtel, waan saacidayaay soo deg, asalaamu calaykum cabdirasaaqow وعليكم السلام ورحمة الله soo dhawow walaal وبركاته ولا waa kuma cabdirasaaq عبد الرزاق إسماعيل عبدي haye كانوا سعودة حفظة وبري
magaalada Garowe magaalada Garowe waa tahay cabdirasaaq barnaamijka hore ma uga qayb qaadatay maye waa markii ugu horeysay Waa markii laakiin ugu saniyadu horeysay. ma xuma ya laakiin saniyadu ma xuma ma xuma Ehe. waayahay annana sidaas oo kale aan kuu rajaynaynaa inaadan niyad xumaanin cabdirasaaq saddex mar baa layna caawin doonaa mar laba laynaga tuurayo iyo marka qaybgalayaashu ina caawinayaan iyo mar ay wacan doona mid ka mid ah asxaabteena Somtel wareegga koowaadna waa 10 su'aalood su-aasha koowaadna waxayna odhanaysaa su-aasha koowaad gobolada koonfureed waxaa gumaysan jiray ba Jarmalka ta Faransiiska ta Ingiriiska iyo xa oo Talyaaniga waa gobolada koonfureed ee Soomaaliya gobolada koonfureed ee Soomaaliya waxaa gumaysan jiray ba Jarmalka ta Faransiiska ta Ingiriiska iyo xa oo Talyaaniga way jawaabta absa jawaabta maynagu adkaatay xogaa waxaan u maleynayaa tuhun baa igu jira tuhun baa kugu jira waaya si aynu u tuhun baxno markaa fursadaheennii baynu haysanaa saddexdiiba in laba laynaga tuurayo in ka qaybgalayaashu ayna caawiyaan iyo inaan wacano mid ka mid ah asxaabteena Somtel maye markii ugu horeysay marka ugu horeysay waxaan la kaashanayaa maskaxdayda haye waxaan kaga jawaabayaa Talyaaniga xa oo Talyaaniga ehe gobolada koonfureed Soomaaliya waxaa gumaysan jiray Talyaani waad hubtaa waa go-aankii ugu dambeeyay waaye gobolada koonfureed ee Soomaaliya waxaa gumaysan jiray Talyaani xa oo Talyaani ayaan wadeegi doonaa Talyaani su-aashaasna jawaabteedu waa mid sax ah su-aasha labaad waxayna leedahay maan rag waa ba misaaro adkood ta waa moos la dhigay ta waa odo dhacmeed ha waa mudacyo afkood maan rag waa misaaro adkood ta waa moos la dhigay ta waa odo dhacmeed ha waa mudacyo afkood abdirsa hore ma u maqashay maye awa kugu ma hor wax kale maan u aqaanay laakiinse kuwan lagu ilmeynayay ma aqaano macno kale ma u taqaanay meena kale haa oo haye maxay yihiin talow caqligaan maan u aqaan caqliga ama garaadka caqliga baadnaan u taqaanay ehe ha ama garaadka bal waay maan rag baa iminkana laynaga rabaa waa misaaro adkood ta moos la dhigay ta ooda dhacmeed ha mudacyo afkood waxaan wacanayaa mid ka mid a Somtel asxaabtaada Somtel mid ka mid a wacanaysa waaye la soo bax teleefankaaga waco su-aasha u akhri kadibna jawaabtoona siiyey bal annagana la wadaag cabdirasaaq waa tartamihii ka mid a tartamayaasha barnaamijka ee caawa daawadayaal wareegiisii koowaad ayuu ku jiraa gaar ahaana su-aashiisii labaad oo odhanaysa maan rag waa misaaro adkood ta moos la dhigay ta ooda dhacmeed iyo xa oo mudacyo afkooda in badan oo ka mid a daawadayaasha hadda waxaa laga yaabaa inay jawaabta ay maanka ku hayaan oo ay garanayaan in badanna waxaa laga yaabaa inaysan horey u maqal oo ay jawaabtaas uu bixiyo ay sugayaan bal aynu aragno hadda wuxuu wacanayaa mid ka mid a fursadihiisii oo uu la hadlayo qofkii waxayna ku haye waa mudacyo afkooda weya jawaabtii buu ina siiyeyba durdaba sax muxuu ina yidhi mudacyo afkooda waa mudacyo afkood ehe maan rag waa mudacyo afkood ha oo mudacyo afkood ayaan wadeegi doonaa ha oo mudacyo afkood ayaan wadeegi doonaa su-aashaasna jawaabteedu waa mid sax ah waayo muxuu ahaa gabaygi maan rageed waa mudacyo afkooda isu mudmudaya soomaa ya anugu xaggaa kuma fiicni xaggaa kuma fiicni waaye su-aasheenna saddexaad waxayna odhanaysaa ari been waa diidaa beense
ba ma gariiro ta ma eedaamo ja ma dhutiyo ha ma biif dhaho biif ari been waa didaa beense ba ma gariiro ta ma eedaamo ja ma dhutiyo ha biif ma dhaho baadiye ma tagtay marna cabdirasaaqo baadiyaha waa tegay baadiye ma tagtay ari marna ma raacda ari xoogaa waa raacay ha xoogaaba raacda waaye ari didaya ma aragta haye waad aragta waan arkay ha saama bahal baa didinaya talo mise way dawaca didinaysay dawaca didinaysa haye waata waaye waxaa marka waxaan leeyahay ari been wuu didaa beense inta kale ari gariiraya ma aragta magi beense ma gariiro waaye ari eedaamaya ma aragta ba ma eedaam waaye ja kale ari dhutinaya ma aragta hati igu soo celi ari dhutinaya ari been been ari been waa didaa haye beense ba ma gariiro magi ta ma eedaamo ja ma dhutiyo ha biif ma dhaho ari biif le maarta haye waa arkay ha biif le haye ha bal waay ma been bay ka tahay talow biiftu wiifta may beenka maaha dhutisku talo ma been buu ka yahay utisku eedaanku ma been buu ka yahay gariirku ma been buu ka yahay intoodaasay mid ku jirtaa jawaabtii saxda ahayd waxaa weeye haddii aan ku nasiiso waxa weeye eedaanka weeye ta oo ma eedaamo ah haa ma eedaan ari been waa didaa beense ma eedaamo may waa ya waad hubtaa may waxaan codsanayaa in laba laga tuuro in labana laga tuuro waxaan dalbanaynaa su-aashiina way nagu yara adkaatay in labana laga tuuro bal waayahay waa inaga tagtay eedaantii oo waxaa isku soo hadhay ari been waa didaa beense ba ma gariiro ari been waa didaa beense ja ma dhutiyo adursa waa gariiraa ari waa ma gariiro ari been waa didaa beense ma gariiro ya adursa haye waad hubtaa waaye ari been waa didaa beense ma gariiro waa go-aankaa ugu dambeeyey waa didaa fursad kaleynu haysanaa haddii shuki nagu jiro ka qaybgalayaashu ay nagu caawiyaan haddii aada hubtidna waynu eeganaa ya absa ma eegnaa mase haye go-aan walaale cabdirasaaqow fursad kaleynu haysanaa hadday nagu adkaato ka qaybgalayaashu nagu caawiyaan si aynu usii hubino ari been waa didaa beense ma gariiro haye ma eegna waa didaa masiga taa hayaag taasaan ku adkaysa taasaad ku adkaysata ari been waa didaa beense ma gariiro oo go-aankaa ku dambeeyey may ma dhutiyo wey ma dhutiyo ma dhutiyo gariirkii waa ka tagnaa haye waay ari been waa didaa beense ma dhutiyo ja oo ma dhutiyo ayaan wada eegi doonaa ma dhutiyo oo ja ah ayaan wada eegi doonaa su-aashaasi jawaabteedu waa mid sax ah waay xogaa way nagu yara adkaata haye laakiin akhirka waa ku guulaysanaa haye Luway. dhawaankaas ma fiicni su-aasheena afraad waxayna dhahaysaa xayawaanka ugu hurdada badan xayawaanada waa xagga xayawaanada ka bixilaada arigii marka hore joognay soo maha bal waayo haddana xayawaankana laynaga rabaa ma ba oo shabeelka ahba mise waa ta oo dhurwaaga ah mise waa ja oo haramacadka ah mise waa xa oo libaaxa ah xayawaanka ugu hurdada badan xayawaanada haddii aynu u adkaato xusuusno cabdisaaqo waxaynu inoo hadhay fursadii ahayd inay ka qaybgalayaashu ina caawiyaan midkana laakiinse anigu aanu aqoon jiray maxaad u aqoon jirtay diinkaan wada jirin inuu hurda weyn yahay diinka baad u taqaanay haye diinka malaqolyo ka hurda waaweyn baa jirta talow wallahi laguma soo darin soo maaha waa dhici kartaa inay ka hurda weyn yeesho marka hadda qolyihii ka hurda waxa loogu soo dari waayay buu qabaa kaasi soo maaha haye ahe bal caawa aduka awl diinka u haysatay soo maaha kasmaal baa caawa ku baraya bal intan keebaa ugu hurda badan baad isleedahay shabeel ma aragta horta weligaa shabeel ha sawir wax ku daawaday laakiinse weligaa ma arkin weligaa maad arkin haye dhurwaaga ka waraysa
dhurwaaga isaga waa arkay waa aragtay soo hurda maartay mal may ma arag waa harbacadka ka war haramaadka isaga ma arag isaga may dhala baan arkay isaga soo dhala baad aragtay harbacad waa gartay sami hurda masuu soo jeeday kaad aragtay may waa soo jeeday uu soo jeeday xa oo libaaxa maartay wali libaaxa may weligay ma arag libaax ma aan arag dhurwaaga keeba ugu hurda badan 15 second baynu haray libaaxan ku nasiibsanaya libaaxad ku nasiibsanaysaa miyaad ku nasiibsanaysaa mise waad hubtaa may waan hubaa waad hubtaa xayawaanka ugu hurdada badan xayawaanada waa libaaxa waynu eegnaa go-aankaa ugu dambeeyey xayawaanka ugu hurdada badan xayawaanada waa libaaxa waa go-aankaa ugu dambeeyey waay dhegeystayaashan u bandhiganaa ka qaybgalayaashan u bandhignaa asalaamu calaykum ka qaybgalayaal waxaan rabnaa inaad naga caawisaan anaga iyo cabdirasaaq su-aashan oo aad ka fiirsataan xayawaanka ugu hurdada badan xayawaanada waa ba oo shabeelka ah ta oo dhurwaaga ah ja oo harmacadka ah iyo xa oo libaaxa intee qof baa qabta inay tahay ba oo shabeelka ah ba oo shabeelka ah inteena qof baa qabta waaya ta oo dhurwaaga ah intee qof baa qabta ta oo dhurwaaga ah ta oo dhurwaaga ah waaya ja oo harmacadka ah haramacadka waaya xa oo libaaxa waaya waad mahadsantihiin cabdirasaaqo soo noqod wanaagsan hal qof wuxuu qabaa inuu yahay haramacadka intooda ugu badnaydna xa oo libaaxa ah bay gacanta u taageen libaaxaasaan ku adkeysanaya libaaxa ku adkeysanaysa oo marka hore inagu aan qabnay waay qof tartamihii kaa horreeyey laftiisa dadkii ugu badnaa baa khalday ka qaybgalaashu mar bay wax khaldaan iyagoo aysan dhibaateeya ka ahayn laakiinse qof walba isleeyahay halkaasay ku jirtaa jawaabta saxda marka waa ku raacnaa qaybtaa badan marka eegana inay khaldaan iyo inay saxaan haddayna khaldaan maxay dhahnaa waa iska sabrana oo Soomaaliya waa Soomaali baan leenahay waa iska sabrana waay haddii ay saxaana waan ugu hambalyeynaya markaas waa u hambalyeynana waay xayawaanka ugu hurdada badan xayawaanada waa xa oo libaaxa ah ka qaybgalayaasha jawaabtaasina siiyey annaguna waanu ku raacnay libaaxa ayaanuna wada eegi doonaa xa oo libaaxa ah su-aashaasna jawaabteedu waa mid khalad 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 waa ja oo harmacadka ah halkii qof ayaa saxay soo maha ya waay nasi waxaan ku rujeynaya cabsaaq barnaamijka kasmaal oodna ku mahadsan tahay ka qaybgalkaaga waayo xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowleyn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana aayar fariinta lacagtaada ka eego mobilkaaga somtel baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kale ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobilkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobilkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadalo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group waa tahay daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka kasmaal ood kala socoteen puntland t v idinkaga imaanaya xarunta dhexe aanu ku leedahay magaalada garowe ee caasimadda dowladda puntland waxaan u mahad celinayaa tartamayaashii kala duwanaa ee ka qayb qaatay muddadii uu soo soconayay barnaamijku idina daawashadiina waad ku mahadsantihiin waanu idinka mahad celinaynaa sidoo kale waxaan ilaawi karin
jumhuuriga ama asxaabtii ka qaybgalayaasha nagula sugnaa stuudiga kuwaasi oo halkan u yimi si ay u caawiyaan dadka ku tartamaya qaybaha kala gedisanaya barnaamijka kasmaal intaan habeenka soo aadna ku kulmi doono mid lamida barnaamijkan waa aabahada kasmaal oo ku dhaafasha sidaas iyo nabadgelyo waa kasmaal oo ka kooban 3 wareeg oo tartamayaasha kala duwan ay ku tartamaan 10 su'aalood oo wareegga koowaad iyo 5 su'aalood oo wareegga labaad iyo 1 su'aal oo wareegga saddexaad haddii aad doonayso ka qayb qaadashada barnaamijka kasmaal ka soo jawaab su'aalaha ku soo dhici doona lambarkaaga Somtel adigoo soo qoraya jawaabta aad leedahay waa tan saxda ah sida ba ta ja ama xa kadibna ku dir lambarka 822 wixii faahfaahinta intaasi dheer kala xiriir qancinta macaamiisha telefoon lambarkiisu yahay 100 ama 66 eber